isku xadgudbaya dadka sharaftoodii iscaayaya qabiilo la caayayo waxaasoo lagu raadinaya markaa shilimaad yaryar oo aan qiimo badan lahayn. soo dhawaada waa barnaamijka hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. maanta barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa labada shakhsi oo aragtaan sawiradooda ama saad ku soo aragteenba thumbnailska. waa laba shakhsi oo haysta waxyaabo aan lacagta lagu iibsan karin ama go'aamo aan lacag lagu iibsan karin. haddaan ku hormaro Amiin Maxamed oo loo yaqaan Janks, oo ah inaan Soomaaliyeed oo degan ka Ingiriiska ahna markaa nin YouTuber ah oo ay ku xiran yihiin 1,800,000 oo qof. markaan duubaya videogan waa nin markaa isagu ka qayb galay showyo badan oo wadanka lagu qabtay, nin caan ka ah wadanka, sameeya content martaqaanaad qosol iyo challenge iyo waxyaabo badan isugu jiro, kadibna u gudbay in markaa muusiga sameeyo maadaama uu ahaa nin jecel fanka iyo mataqaanaaye lehna cod aad u macaan. go'aanka markuu qaatay oo markaa uu sameeyay muusiga oo markaa oo waxyaabaha uu ku jeclaan ahayd inuu wareego oo markaa and it was that adrenaline of rather here for me, like, you know what I mean, and it's kind of like that's the feeling I love that time. And from then I was like, you know what, I want to make rhythms properly and I want to be on stage 24/7. We were meant to tour, drop an album or EP with me and Philly during like 2020 and then tour straight after that. Thankfully, not on that vibe, obviously, but COVID hit because that's delayed me jumping out. Because I feel like if I dropped the album and then I started to tour, I would be too deep in. If you felt the tour life. If I felt the tour life, stage, people reciting my... It's not reciting, that's a bit crazy. It is reciting like, lyrics. Yeah, reciting my lyrics. Like, you know what I mean? Singing it back to man. I'll feel like that, yo. Yeah. God, like that feels good. Yeah. So I think it would be impossible for the jump off. So I'm actually lucky. hase yeeshee markaa wuxuu yiri inankan inuu qalbigiisa iimaankii ku jiray iyo muusigii in ay wada qaadi weyday. go'aanna wuxuu ku gaaray markaa inuu iska daayo una daayo dar Allah siduu noo sheegay. It's against my beliefs, against my religion, so I kind of have to stop it for the sake of God. It just hit me, bro. Like randomly, one day I was just like, you know, I don't feel right about doing this. Obviously, getting closer with the religion, praying now for the last 2 years, alhamdulillah. Stop. So it's just a thing where I was like, you know what? I feel bad every time I even associate with music and releasing it and stuff. So I think it was just that time. And obviously, music kind of like decreases your iman or your faith for people that don't know. I don't think they can go hand in hand. So yeah, I was like, you know what? I kind of lost sight of the, like, you know what I mean, the vision in terms of. But why now? waxa uu daayay waxa weeyaan wuxuu jeclaa marka labaadna uu lacag zaa'id ah 100 milyan iyo ka badan uu ku heli lahaa ayuu wuxuu u daayay. Kind of have to stop it for the sake of God. maxaa ka fiican ninkan kale arkaysan waa Khabib. waxa uu ciyaaraa ama ciyaari jiray ama uu kamid ahaa dadka ciyaara MMA-ga oo loo yaqaan martial arts. waa kickboxing-kii, waa boxing-kii, waa legdiintii, waa jiu-jitsu-gii oo markaa uu ka ciyaaraya heerka ugu sareeya ama organization-ka ugu sareeya loo yaqaan UFC. uuna ku guuleystay mataqaanaa suunkii miisaankiisa ahaa isagoo weliba aan laga badin. kadibna aabihii baa geeriyooday markii suunka uu qaatay. kadib gamekii ku xigay markuu ciyaaray wuxuu markaa dadka u jeediyay inuu ka fadhiisanayo. go'aankaas oo ka yimid hooyadii oo tiri dib dambe ha u ciyaarin hadduu mar aabaha geeriyooday. And still undefeated in the UFC, undisputed lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Today, I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin,
I talked with my father, my mother, 3 days. She don't want I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. waxaa cajiib la noqotay dadkii marka nin da'di yar oo lacag badan sameyn kara inuu mataqaana hooyadii saa u adeeco waxaa markaa hadda soo baxay in nin asna feeriyahana oo Mayweather la yiraahdo oo markaa isagu ilaa 40 game ciyaare oo sana laga badin in uu balan qaaday $100 milyan haddaba ninkan dhageyso wuxuu ka sheegay marka dad badan baa reaction ka bixiyay 100 milyan. Is there anything that'll get Khabib to come back? 'Cause I know we had talked about it earlier. Is a George St. Pierre fight, will that ever entice Khabib to come back? I'm gonna break some news here. 2 weeks ago, 10 days ago, Dana White called me and he said, George St. Pierre, he said he'll fight Khabib. Non-title fight, 165 pounds. Khabib got offered $100 million after he's retired to fight Floyd Mayweather. 100 million. Is that crazy, buddy? 100 million. You can ask Floyd, you can ask everybody. And Khabib said, no, I'm retired. I told my mother I'm retired. I did, I'm gonna keep my word to my mother, right? If my mother told me to fight again, maybe I will. But right now, she told me not to fight. He come from a Muslim culture. We respect our mother very dearly. We can't go to heaven without our mother permissions. A $100 million guarantee against Floyd Mayweather. Well, it must be nice to be Khabib. That's all I'm going to say. Do you know what I mean? Anytime you're turning down $100 million fights, that means that life is very, very good. Yeah, good. Yeah, I mean, listen, they're saying, what did you put in the notes? It said something, unless his mother says he can fight. Yeah, so that was what Ali followed up with. He said, he promised his mother he wasn't going to go fight. Right now, his mom says she doesn't want him to fight. If she changes her mind, he may change his. But until she gives him the green light, he's done with fighting. You got to respect that. I respect the hell out of that. I mean, Khabib's such a great guy. He really is such a class act. As we know, he's a fantastic, phenomenal fighter. We never seen anything like him. And have you ever heard of anything like that? Somebody turning down $100 million to honor the promise that he gave to his mother? I mean, that's insane. I mean, gunaanadkii waxyaabahan aan soo sheegay waxaan wada dan leeyahay bariyahan buuq ayaa ka taagnaa social media gaar ahaan qaybta Soomaalida ama dadka af Soomaaliya ku hadlo oo runtii ma taqaanaayay isku xadgudbaya dadkii sharaftoodii dad iscaayaya qabiilo la caayayo waxaasoo lagu raadinaya markaa shilimaad yaryar oo aan qiimo badan lahayn hadduu ilaahay kugu talagalay in wax ku siinayo markasta waa helaysaa hadduu ilaahay ku qor inaad $1 heshid waa helaysaa $1 laakiin wanaag ku raadi haddaa xumaan ku raadisid kunkii baa helaysaa ka badan ma helaysid laakiin xumaan baa ku raadisid dadkaan arkayna millions ba iska celinayaan leeyihiin marabno marka barbardhigaas ma aha mid aan ka keenay asxaabtii waa dad nala nool adduunyada aan ku nooshahay ku nool maanta kula joog ya millions dollar celinaya adigana waxaad ku raadinaysaa in qofka la caydid ama xumaantiisa meelaha dhigdhigtid ama aad faafisid lacaga yaryar oo qiimo badan lahayn marka walaalayaal hadalkan igu dheereeyay haddaba waa fahmaysaan waxaan ka goon lahaa ama waxaan u soo qaatay hadalkayga dadka aan ku dayano wanaagsan kuwa xunna aan ka cararno barnaamijka maanta xagaas intaas ayaan ku gabagabeynaa barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waxaan iga tegaa sidaa iyo nabadgelyo